السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي جعلنا يكسو دوادا جنر كينا كحرو فخريقا waxaan maanta idin wadaa qisadii taa oo ku saabsan isbedelka nolosha. Qisadani waxay dhex martay gabar yar, eedadeed iyo adeerkeed oo ku wada noolaayeen hal guri ka hor inta aysan waayin gabadha hooyadeed iyo aabaheeda. Haddaba inta aan u guda gelin qisadan, hanaga hilmaamin sheerta, commentiga iyo subscribe-ka. Waxay inoo tahay dhiirigelin insha Allah. Hadda waxaan rajaynaynaa inaad wax badan naga faa'iido. Qisadan waxay ku socotaa gabar magaceeda la yiraahdo Idman. Idman aabaheeda wuxuu u dhintay iyada oo jirta 1 sano. Idman waxay la nooleed hooyadeeda oo iyadana muddo 5 sano kadib dhimatay. Kadib Idman waxaa la wareegay adeerkeeda aabaheeda la dhashay. Idman aabaheeda iyo hooyadeeda wuxuu uga dhinteen hanti aad u badan. Hantida waxaa la wareegay adeerkeeda iyo eedadeeda oo lagu magacaabo eedadeeda Malyuun iyo aabaheeda Maxamuud. Malyuun iyo Maxamuud waxa ay dhaleen 5 caruur ah oo 3 ay ka weyn tahay Idman, 2 ay ka yar tahay Idman. Ayagana magacyadooda waxaa la kala dhihi jiray Saabir, Faadumo, Maymuun, Caasho, Khadiijo. Idman 3 ka weyn waxay dhiganayeen iskuul iyo dugsi, 2 ka yarna guri joogtay u ahaayeen. Talow nolosha Idman geerida aabaheed iyo hooyadeed kadib ma waxay ku noolaan doontaa nolol dhib iyo rafaad ah, mise waxay ku noolaan doontaa nolol qurux badan? Nala soco oo nala jaanqaad sheekadani cusub. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidaan. Intaa mid ka mid lacana kulmi doona, waxaan idinkaga taginaa sidaas iyo amaano Allah. Hanaga hilmaamin sheerta, commentiga, subscribe-ka. Intaba waxay inoo tahay dhiirigelin insha Allah.